السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا وناليال مقعي عبد الله محمود. حينو السعودية عشر ديني ميكرو ايكونوميك عشر كان وعشر كيسة حادوية وحكاها ليا فاكتورز اوف برودكشن wax soo saarka waxyaalaha waxa weeye wax lagu soo saaro. Okay, si aynu isla fahanno casharka maanta wuxuu ku saabsan yahay waxaan ku weydiinayaa adiga daawado su'aal baan ku weydiinayaa. Waxaan rabtaa inaad ganacsi abuurdo, si aad ganacsigaaga u abuurdo maxaa waxa weeye maxaa muhiim ah inaad haysato. Ganacsi waa rabtaa inaad magaalada ka abuurdo, maxaa weeye waxyaalaha aad rabto inaad waxa weeye ganacsigaaga ku abuurdo waxa weeye oo laga maarmaana. Waxaan jeclaan lahaa inaad wax yar stopta aad qabsato aad ka fakado arrinta. dabcan qofkii haddii uu shirkad abuurayo wuxuu u baahan yahay waxa weeye meeshuu shirkadda ka samayn lahaa waxa weeye landigi ama dhulkii buu u baahan yahay inuu waxa weeye shirkadda waxa weeye ka samayn lahaa. sidoo kale wuxuu u baahan yahay shaqaalayaal ka shaqeeya shirkaddii ka shaqeeya uu u baahan yahay. sidoo kale wuxuu u baahan yahay waxa weeye oo marka ugu horeysa ideadaas oo ah maxaan soo saaraya fikrad ganacsi yani iyo waxa weeye socodsiintii waxa weeye ganacsiga. sidoo kaleeto wuxuu u baahan yahay qofkii waxa weeye si shirkaddii looga shaqaysiiyo waxay u baahan tahay waxa weeye mashiinay u baahan tahay tools bay u baahan tahay si shirkaddii looga yani waxa weeye wax soo saar u yeelato. maxay niri waxa weeye adiga nafkaaga waxa weeye inaad garataan u malaynaya goorta shirkadda saasay waxa muhiim ah inaan haysto dhulkii aan shirkadda ka asaasayay ideadii fikirkii waxaan soo saarayay khuseeyay iyo qaabkan wax u manage gareynayay. sidoo kale to shaqaalayaasha waa inaan haystaa meeshii iga shaqeynayay. sidoo kale waxa weeye waa inaan qalabkii haystaan wax ku soo saarayay. marka casharkeenu waxa weeye maanta waa intaa way afartaas ku saabsan yahay wax weyn maaha oo aad adiguba garanayso way. okay, marka waxaan ku hormarinaa landigi dhulkii. landi marka goortii factors of production sheegayo waxa weeye waa wax kasto waxa weeye raw material ama natural resource oo waxa weeye dushiisa ama waxa weeye hoostiisa ku jira sida biyihii sida waxa weeye gaaskii sida waxa weeye sidoo kale to oilkii waxyaalahaas oo dhan. marka waxa kamid ah waxyaalahan ka soo baxa oo lagu dul beero kaleeto. sidoo kale waxa ka mida waxa weeye landiga goorta la leeyahay waxa weeye waa waxa badda ku dhex jira iyo waxa weeye waxa kurkeeda saaran oo dhan. sidoo kale waxyaalaha cultivatedka oo waxa weeye laga beero sida wheatka rice-ka apple-ka waxyaalahaas oo dhan. laabarkii hadaynu nimaano waxa weeye waa human resource waxa weeye waa human resource-gii waxa weeye kheyraadkii dabiiciga ah oo dadkii laga helayay kaasi oo ah inuu qofkii waxa weeye xoogiisa ku shaqeeyo waxa weeye shirkaddii qaab si physical oo waxa weeye inuu alaabtii oo kale to bacayo inuu alaabtii waxa weeye oo kale to uu habeeyo isku habeeyo iyo inuu intellectually uga shaqeeyo managementigiya oo qofkii waxa weeye design oo kale to dhisan garayo laabarkii waa saas weeye isagu. sidoo kale capitalkii waxa weeye waa technology-yadii iyo toolkii uu isticmaalaysay waxa weeye company-gu isticmaalayay ama aad isticmaalaysay aad si aad u soo saardo product-ga u soo saardo sida waxa weeye toolskii oo matalan tusaale ahaan hadda tusaale waxaan soo qaadanaa beer baad beeraysa. marka beerta aad beerayso cagaf kaaga shaqeyso waxa weeye qoda ay xafta kaaga shaqeynaysaa waxa weeye waa capitalkii si aad waxa weeye hadhow aad wax soo saar aad u soo saardo waxa weeye dalag aad u soo saardo. entrepreneurship waxa weeye waa ideadii waxa weeye ganacsi goorta la abuurayo waxa muhiim ah in ganacsiga idea uu leeyahay oo waxa la abuurayo la garanayo. matalan waxa weeye dukaan bay furayna alaabaha dhan lagu iibiyo maya waxaan sameynaynaa dukaan lagu iibiyo dalagga lagu iibiyo maya beer baan falanaynaa maya waxaan soo iibsanaynaa waxa weeye saxiimad baan soo iibsanaynaa way jilaabaneynaa. yani
businesska goorta la abuuray waa inuu idea dee master idea waa inay jirtaa sidoo kaleeto managementigina waa ku jira haddaan businesskii management aan lahayn oo cidi go-aaminayn maxaa la soo saaraya yaa soo saaraya goorma la soo saaraya intees la soo saaraya businesskii socon maayo waa in management jira oo qof ideadan ka yimaada oo waxa weeye dadkii shaqaalayaasha qofkii soo xulaya oo waxa weeye shaqadii kor joogteen lagu hayaa si businesskii de business faa'iido dhala u noqdo marka factors of production waa inta wax weyn maaha haddaad ingiriiskan oo kaleeto waxa weeye sida jaamacadaheena ka jira ardaydu waxa weeye waxay isku hawlaan in sidii ingiriiska ay u xifdin lahaayeen hadhowna waxa weeye jaamacaduna waxay u keenaysaa su'aalaha what's the land marka ardaygu wuxuu soo xifdiyaa kaliya waa intaa weeye aqoon ahaan u qaadan maayo ingiriiska dhan waxa ka muhiimsan waxa weeye inaad wixii aad fahansantahay aqoon ahaan aad u haysato sidoo kale waxaan kula dardaarmay inaad ingiriiska focus ka saaraan oo si fiican ingiriiska ugu dadaashaan yani barashada ingiriiskan ka wada ma aha xifdiga what's the land iyo waxaas ingiriis ma ingiriisku haddaad ingiriiska aad taqaano yani waa furihii waxbarashada adiga meel kasta gelaya youtube-ka waxaad ka baranaysaa waxaad wax ka baranaysaa waxa weeye google-ba waxaad ka baranaysaa sidoo kale maqaaladii waxaas akhriyaysaa ku saabsanaa dhaqaalaha kaleeto yani waxa weeye wuxuu kuu furayaa daaqad buu kuu furayaa laakiin inaad waxa weeye ingiriiskan qaybto waxba kugu soo kordhimayso sida waxa weeye arda quraankii oo kaleeto inagu dhamaanteen quraankii way wada dhamayna haddana waxba kama xasuusan maxaa keenaya waxa weeye carabi waxa luqadeeni ma ahayn kow waxa weeye ma fahmin hadii fahmi lahayn waxa weeye wuxuu quraanku ka hadlayo iyo waxa weeye waxyaalihii quraanku uu soo degay yani aayaduhu kala duwan aayadba meelba waxa weeye waxbay u soo degtay there is a reason baa jira hadii ogaan lahayn reasonka uu soo degtay ahkaamtu waxyaalihii oo dhan yani main lowneen marka waxa muhiim ah in waxa weeye macnaha iyo waxa weeye aqoontu waa inta weeye in waxa la fahmo weeye macnaha ingiriisi iyo carabi waxa soo tarimayaan marka casharka intaas ku soo gabagabeynaa insha Allah ta'ala wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh